kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamkana waxaa kamid ah cadaadis dalalka Turkiga iyo Qatar ay saareen madaxweyne Farmaajo saacada ka hor iyo go'aanka uu ka qaatay madaxtooyada Soomaaliya oo degdeg ugu yeertay magaalada Muqdisho inuu ku soo xaroodo madaxweyne Xaaf kaasoo hadda jooga magaalada Gaalkacyo heshiiskii lacageed ee hore loo galana hadda ayaa la siinayaa si kaash ahaana dhowr qof oo u dhintay ku dhawaad 100 kalena waa ay u jiifaan xanuun aan la garanayn oo ka dilaacay gobol ka mid ah Soomaaliya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ku digtay madaxweyne Xaaf sheegayna in looga baahan yahay go'aankiisa inuu cadeysto caqabadna uusan ku noqon arrimaha galmudug iyo doorashada maamulka loogu dhisayo mustawaha iyo heerka aqoonta shaqaalaha dawladda ee mushaarka miisaaniyadda 2020 oo la ogaaday iyo isbeddelka ku jira lacagihii hore ee miisaaniyadda ay u qoondeysay murashax madaxweynaha galmudug Cabdiraxmaan Odawaa oo guul lama filaana ka gaaray garaacayna murashaxa la tartamaya Axmed Cabdi Qoorqoor ee dawladdu taageersan tahay qodobka dibaddana waxaa ugu muhiimsan baarlamaanka dalka Liibiya oo xiriirka u jaray dawladda Turkiga amrayna in safaaradda dalkaas ee dalka Liibiya albaabada loo laabo u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakadda wararka maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha koowaad ee Janaayo 2020 waana maalin Axad ah warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warar lagu kala soonaan karo waxay noo sheegeen in cadaadis uu kala kulmay saacadihii la soo dhaafay wadamada Turkiga iyo Qatar ugu dambeyntii uu go'aan ka qaatay saameynta weerarkii ka dhacay magaalada Baghdad ee caasimada dalka Ciraaq habeenkii Jimcaha soo galeysay toddobaadkii hore waxaa laga dareemay dunida oo dhan kadib dilkii Generaal Qaasim As-Suleymaani loo geystay xukuumadaha Ankara iyo Dooxa waxay madaxweyne Farmaajo ku qasbeen inuu tacsi ka diro dilka loo geystay sargaalkaas isagoona telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo inuu ka xun yahay ka dawlad Soomaaliya ahaan dilkaas loo geystay Qaasim Suleymaani oo ahaa 63 sano jir hoggaanka militariga Iiraan caanka ahaa madaxda dawladaha Qatar iyo Turkiga ayaa horay Iiraan iyo waliba Ciraaq waxay kaga tacsiyadeen dilka loo geystay generaalkaas oo saameyn ballaaran ku lahaa bariga dhexe kaaga darane xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya waxay xaqiijiyeen in Farmaajo cadaadis la saaray kadib uu aqbalay arrintaas loo soo jeediyay isla markaana uu tacsi ka diray dilka sargaalka loo geystay waxaana dawladaha shiicada hogaamiso sida Lubnaan, Liibiya, Ciraaq, Iiraan, Yemen iyo wadamada kale ee bariga dhexe qaarkood sida Syria ayaana aad uga xumaaday falkaas Mareykanka uu sameeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa sheegay in isaga amarkaas uu bixiyay dilka loo geystay Generaal Suleymaani uuna ahaa shakhsi dhibaato ku soo ahaa muwaadiniinta Amerika ee dalalka Ciraaq iyo Iiraan jooga lamana oga xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka sida uu saameyn karo tacsida uu madaxweyne Farmaajo u diray xukuumadda shiiciga ah ee Caadil Cabdulmahdi hogaamiyo waddanka Ciraaq qaybaha hore ayaa daawanaysaan shabakadda wararka maanta ayaana la socotaan warar dhowra ayaa nagu soo maqan oo ay ka mid yihiin guusha Odawaa uu ka gaaray Axmed Qoorqoor xildhibaanada uu haysto ilaa hadda iyo rajada uu ka qabo madaxweynaha galmudug inuu ku soo baxo aanse ka hormariyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul u weeraray falsafada madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaana Xaaf dhowr bilood ka hor uu shaaciyay in shaqada galmudug gaar ahaan qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka uu ku wareejiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo deegaanahan ka soo jeeda galmudug isla markaana ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isweydiiyay wax xilligan isku soo beegay safarkii Xaaf uu ku tagay magaalada Gaalkacyo iyo guddiga doorashada ee uu magacaabay saacada ka hor haddaba waxa aan la yaabanahay oo aan isweydiinayna waxa isku soo aadiyay imaanshiyaha madaxweyne Xaaf ee Gaalkacyo guddiga uu ku dhawaaqay saqdii dhexe habeen hore iyo laxawga cusub ee galmudug ka soo galay 6 bilood kadib markii xilkiisii uu ku wareejiyay ama walaayadii galmudug wasaaradda arrimaha gudaha iyo waraaqda ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka qaranka looga hakiyay lacagtii galmudug ee dhowrka bilood ee la soo dhaafay sida shakhsiga ahaa ay u isticmaalayeen isaga iyo saaxiibadiis ayuu yiri Mahad Salaad
xildhibaanka oo sii hadlayay ayaa sheegay in madaxweyne xaaf in xilkii reer galmudug u doorteen uu ku wareejiyey wasiir sabriye islamarkaana uu sheegay xaaf hadda uusan xil ka haynin galmudug isagoona kula taliyey haddii han siyaasadeed uu ku jiro in uu tartanka soo galo xubnaha murashaxiinta. madaxweyne xaaf markii uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha xilkii reer galmudug ay u dhiibteen ayuu ka tanaasulay mas-uuliyaddii uu galmudug u hayay. xilka lagu doortana waa dhiibtay in aad dhahdo waxay ahayd mid la mida adigoo iscasilay. marka galmudug mas-uuliyad hadda uma haysid ee haddii han siyaasadeed kaaga jira tartanka soo gal abtiyow, ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad. dad badan ayaa la yaab iyo laablakacay ku noqotay isbeddelka ku yimid madaxweyne xaaf xilli gebagabo ay marayso dhismaha galmudugta loo dhan yahay, waxaana ay dadka qaar sheegeen in go'aanka xaaf uusan xilligan saameyn lahayn waxaana ka beddelayn shaqada dowladda federaalka ay gacanta kula jirto. dhinaca kale madaxtooyada soomaaliya ayaa magaalada muqdisho deg deg ugu yeertay inuu ku soo xaadiro madaxweynaha xilka sii haya galmudug axmed ducaali geelle xaaf oo hadda jooga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. xaaf ayaana la rumaysan yahay in uu doonayo sidii uu hankiisa siyaasadeed ka soke uu dhaqaalo badan ka samayn lahaa doorashada galmudug, lamana saadaalin karo sida ay wax isku beddeli doonaan. waa hagaag wararka maanta ayaad weli daawanaysaan. wararkay naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in xanuun aan la garanayn ilaa iyo iminka uu ka dilaacay qaybo ka mida gobolkaasi. dadka degan deegaanka saaxdheer ee koonfurta sool ku taalla ayaa waxay xaqiijiyeen in 2 qof ay dhinteen ku dhowaad 70 kalena hadda uu xanuunkaas soo ritay oo ay sariir la jiifaan. qof ka mida dadka halkaasi degan ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay dadka badankood la yaaban yihiin. qofka waxaa mar keliya ku dhacaya matag afka iyo weliba gadaal ah, qandho saa'id ah ayaa sidoo kale qabanaysa, taasoo badi dadku ay sheegeen in werwer iyo cabsi ay muujinayaan in cudurkaas haleelo. saraakiisha caafimaadka deegaanka saaxdheer waxa ay sheegeen in dawooyinka ay aad u yaryihiin islamarkaana saacado gudaheed dad badan uu soo ridanayo cudurka. ilaa hadda lama ogaan karo xanuunkan waxa uu yahay, waxaana la filayaa in dhakhaatiir ay ka baxaan magaalada laascaanood si ay u soo ogaadaan xanuunkan iyo waxa uu yahay. deegaanka saaxdheer ayaa maamul ahaan hoostaga somalilan, waxaana ilaa iyo iminka war aysan ka soo saarin xukuumadda hargeysa cudurka la sheegay inuu ka dilaacay qaybo ka mida deegaankaasi. miisaaniyadda dowladda ee dhowaan la meelmariyey ayaa nuqul ka mida aanu helnay, iyadoo dhaqaale ahaan sida ay kala noqonayaan mushaarka shaqaalaha dowladda ay yihiin mustawaha kuwa kala duwan. waxay miisaaniyadda 2020 ku leeyihiin grade A $2,482,180, waxaana ay tirada taas ka badan tahay lacagta ku soo aadaysa shaqaalaha B iyo C. grade B oo tiro ahaan ka kooban 401 waxaa loo qoondeeyey mushaar dhan $7,022,800. grade C ayaa tiro ahaan gaaraya 1,012 shaqaale, waxaana ay heli doonaan $4,043,160. grade D oo ugu dambeeya ayaa mustawaha heerka mushaarka shaqaalaha waxa ay tiradooda iyaguna yihiin 489 shaqaale, waxaana iyaguna mushaarkoodu yahay $1,287,496. waxaa jira shaqaale kale oo dowladda Soomaaliya u qoratay la talin, tababar iyo wixii la mid a, kuwaas oo iyaguna gaaraya ilaa 330 qof. laakiin sidoo kale waxaa u badan grade A oo gaaraya 178 qof. lacagta ay mushaar ahaan u heli doonaan ayaa lagu tilmaamay 10 milyan lacag ku dhow. waxyaha shaqaalaha dowladda ayaana aad u kala sarreeya mushaarka sida ay yihiin. qaybta ugu dambaysa waa difaaca iyo amniga oo ah 155 qof, iyo qaybta bulshada ee waxbarashada, caafimaadka iyo isboortiga oo ay joogaan 591 qof. sida caadada ah waxaa u badan kuwa grade A. gabagabada ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. wararka maanta ayaana weli la socotaan.
murashaxa madaxweynaha galmudug cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa ayaa waxa uu la yimid falsafad cajiib kaasoo doorashada galmudug uu ku sii dhowaanayo in uu guul ka keeno. odawaa ayaa la soo sheegayaa inuu si hoose ula heshiiyey xildhibaanada oo aan weli la shaacin 69 guddiga farsamada maamul u samaynta galmudug gacanta ku hayaan, maadaama 20 ahlu sunna hore loo sii shaaciyey. murashax cabdiraxmaan odawaa ayaa sii helay magacyada qaar xildhibaanada kana dalbaday inay codka ku taageeraan, waana ay ka aqbaleen isagoo dhaqaalo bixinaya sida la sheegay. hase ahaatee weli waxaan lahayn tirada xildhibaanada uu 5 farood ku dhigay odawaa, iyadoo guushiisaas ay kooxda ololaha doorashada u qaabilsan murashaxa ay ku faaneen. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa u iibinaya codadka xildhibaanada murashaxa uu wato ee axmed cabdi kaariye qoorqoor, iyadoo wax kasta ay isbedeli karaan waqtiyada u dambeeya. doorashada galmudug ayaa indhaha lagu wada haya shakhsiga soo bixi doona, waxaana qoorqoor iyo odawaa oo isku beel ah ay ka soo jeedaan deegaan ahaan magaalada Cadaado, waxaana ay ku abtirsadaan beesha Saleebaan Habargidir, waxaana ay isku garbinayaan midba midka kale inuu ka guulaysto. laakiin hadda waxa ay yihiin kuwo aan dab yarshidayn labada dhinac. odawaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inuu garaaco kursiga madaxtinimada galmudug waxa uu doonayaa kana dulqaado maareeye ku-xigeenkii hore ee dekedda magaalada Muqdisho Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor. markana qodobka ugu dambeeya ee dhanka dibadda ayaan eegayna. baarlamaanka dalka Liibiya ayaa xiriirka u jaray dowladda Turkiga kadib markii ay ku eedeeyeen inay heshiis la galeen qarannimada waddankaas ku xadgudbaya. dowladda taagta daran ee Fayis al-Sarraj uu hogaamiyey ra'iisul wasaarahana ka yahay, waxaa heshiiskaas uu dhigayay in ciidamo lagu taageero dowladda Liibiya oo ka imaanaya dalka Turkiga, taasoo khamiistii toddobaadkii hore ay baarlamaanka kulan ay ku yeesheen magaalada Ankara ee caasimada Turkiga ku meelmariyeen xeer ogolaanaya in ciidanka Turkiga Liibiya ay tagaan. hase ahaatee kulankii Sabtidii ka dhacay magaalada Benghazi ee dekedda leh dalka Liibiya ayay baarlamaanka dalkaas waxa ay amreen in xitaa albaabada loo laabo safaaradda ay Liibiya ku leedahay magaalada Ankara, islamarkaana midda Turkiga ee dalka Liibiya iyadana la xiro. waxa ay beesha caalamka iyo dalalka carabta ka dalbadeen baarlamaanka Liibiya in il gaar ahaaneed ay ku soo eegaan gardarada iyo weliba ku xadgudubka qarannimada ee dalkooda uu ku hayo Turkiga. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararka. inta aan wararkan oo kale dib isku arki doonno.